iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay gobolka Awdal isa soo tarayaan barnaamijyada lagu qabanayo kuwaas oo bulshada inta badan saameyn isbedel cilmiyeed ku yeesha walow gobolka Awdal lagu tuumo laguna tiriyo dhanka aqoonta haddana waxa uu dadaal dheeriye uga jira sidii uga dhex ifilaha gobolada kala duwan ee Somaliland habeenkii xalay saacada kamid ah waxay ahayn kuwa la kala faa'iiday dood cilmiyeedna dhagaha loo raaricinayay dhalinyarada da'yarta sidii ay aqoonta ku dhehnayd ay dooda u falanqeynayeen taasi oo ku baxaysay luqadda afka qalaad ee Ingiriiska munaasabadani hanaankeeda dhicitaan sida quruxda badan leh loo soo abaabulay ayaa waxay ka qabsoontay mid kamid ah howlasha raysay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxayna ujeedkaygu daarnayd sidii loo abuuri lahaa isdhexgal ay ku midaysan yihiin dhalinyarada iskoolada kala duwan ee guud ahaanba Somaliland loona heli lahaa fagaaro ay ku doodi karaan iyagoona la imanaya mowduucyo kala duwan labada iskool ee habeennimadii xalay saleelay ayaa waxay kala hayeen iskoolka Waabari iyo iskoolka Turkiga waxaana agaasinkeeda lahaa munaasabadani naadiga dooda ee Boorame oo uu horkacayo Dr. Jibriil Colaad Didir iyo Cabdirashiid Daacad iyo xubnaha kale naadigaasi ugu horeyn waxa madashay bafulay xubin kamid ah naadiga dooda ee Boorame iyo mas'uuliyiintii ka socday labada iskool waxayna yiraahdeen Waabari school ma garanayaan ardayda Turkish ka dhigta kolka waxaan ugu talagalnay in interaction koogu uu fiicnaado self conference koogu uu fiicnaado communication ku uu fiicnaado ardayda tartamaysa caawa waa debate waa bilow ma haddood weyn oo keeni karta wax conflict leeyahay ama khilaaf laakiin waa isdhexgalka ardayda in Boorame. Actually this is a very important program, a very important event. We are talking about the decision making skills, problem solving skills, and the public speaking skills. As we were told, this discussion, it is not a competition between two schools, but it is only discussion which are sharing by ideas. dhankooga iyagana waxa makarafoonka ku kala dambeeyay badiba haldooradii lagu soo maamusay caweyska dooda oo bogaadiyay dhalinyarada waxayna tilmaameen in madalahan oo kale la badiyaa ay muhiim tahay. Tonight is not to decide who is better and who is not, but it is to help our students. People lack confidence of speaking. People know English, but they don't have that confidence of speaking. So this is a very good initiative to encourage our students to learn how to express themselves. barnaamijyada noocan oo kulli la rabo ilaa inaga daydo tawada dhiganaysa iskuulka way siqaan laakiin qofku goobaha noocan ama golaha noocan oo kala waxa laga yaabaa in wax badan u korin doonto. I'm very happy to see these debates going on. It's very developing our students and our Somali people to a next level. MashaAllah. As we learn, I also was a student sometimes back, though I didn't do very well. But I was always tired reading books and other activities. So it's a good as an extracurricular activities for students to meet and talk freely without expecting an exam or something like that. si toos ah waxa loo gudagalay bilaabida dooda waxayna ahayd sidan. Education is needed so that people can join a professional career. A professional career is when a student in high school gets an option in either of what career he wants to do in the future, which then enables him to get money. Which money you guys were talking about, money. Second option, you don't have to go to school in Boorame right now. Creativity is what you need in Boorame right now. Because Boorame, what works out is money. But creativity, when it comes inside Boorame, that's what's going to happen. We're going to have like many engineers, many doctors, many everything, which then cause a lot of money for Somaliland, which then Somaliland is going to be one of the best countries in the world, inshallah. So the importance of money. When we talk about money, it has very few advantages. So have money, but we need daily life. We use for daily life. So the second point is banking. So how we can solve for in banks. And the third point is helping people. We have money, but how we can help it? The poor people are the people. So it's not needed for me to pay money, isn't it? For example, the judges will participate for me, isn't it? Yeah, so it's not needed for me to pay. But if you didn't pay any money, you can't come in. Do you understand? So you misunderstand it. So be control, isn't it? We are not come here to be fight, okay? Question is direct to this group. If you realize that money can't go with your grave, but your knowledge, but what you did in the world can go with grave. My second point is that
everybody is saying, can we build, can we have an education freely? Yes, we can have. We have Sheikh Ali Jawhar School with the government, with no money, with free school. ugu dambeyn waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey shahaado sharaf ay ku dhiirigelinayaan dhalinyarada sida cilmiyeysan doodaha iskula wadaagayay madashani ayaa waxay noqon doontaa madal looga kala yimaado gobolada kala duwan ee Soomaaliland oo saameyn xooggan yeelan doonta sida ay ku hanwen yihiin mas'uuliyiinta madashani soo qaban qaabiyay waa suxufi cishqi magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal.